سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كلانتي لباد iyo saddexaad iyo boqolaad oo wanaagsan saaxiibayaal meel walba oo daafaha dunida kaga nooshiin nabad qab iyo caafimaad qab baan idin rajeynayaa dhammaantiinba wixii dhiban walaalahay reeqa soo horeeyaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dhibta ka dulqaado wixii buka Allah caafiyo qof walba oo murugaysan murugta Allah ka dulqaado aamiintu xaqiina ducadu waa xaqeega aqbalkuna waa xaq Ilaahay sideenu maanta sidaan maalmaha basoo wadni waa qisa jacayl waxay noogu bilaabanaysaa wiil nuur la yiraahdo ayaa waxa ku dhashay gobolka Hiiraan ee bartamaha koonfurta Soomaaliya wuxuu ahaa wiil agoon ah Ilaahay ha u naxariisto waalidkii iyo dhammaan waalidiinta Soomaaliyeed inta agoontaana sabir iyo Allah ka siiyay wiilka waxa soo korsatay eedadii oo deganeed gobolka Banaadir qof aan garanayn waa Muqdisho isagoo yar baa loo keenay halkaas ku soo barbaaray wax ku soo bartay muddo sanado kadib wiilkii wuxuu noqday wiil qaangaara oo gaashan qaada waxa uu noqday dhalinyarta ugu firfircoon xaafadda dhan walba ay tahay marka loo eego xagga waxbarashada xagga aktifnimada iyo boodboodka iyo ka dhex muuqashada dhalinyarta xaafadda gabadha Fartuun la yiraahdo ayaa ah atriishada qisada gabadhaas iyadu waxay ku dhalatay degmada Kaaraan isla gobolka Banaadir kuna soo barbaartay waxbarashadeedii dhexe iyo staraba ku soo qaadatay ilaa hoose waxaad ogsoontihiin 2007 dagaal aad u qaraadh oo waqtiga ay soo galeen ciidamada xabashidu soo galeen Soomaaliya midowga maxaakamta Islaamiga oo shaqeynayay Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho waxa aad uga dhacay dagaal degmooyin dhab laga qaxay gabadhaasi Kaaraan bay deganeed degmada deganeed way ka soo qaxeen macalhantigoodii way ka yimaadeen way ka soo carareen iyagoo dirqi ula soo fakaday naftoodii waxay u soo qaxeen degmooyinka nabadda ahaa waqtiga ee Madiina reerkoodu waxay gaareen inay u qaxaan magaalada qayb kamid ah xaafad kamid ah oo la dhaw Wadajir waxay kareysteen guri aad u ag dhawaa guriga ay deganaayeen ninkii nuur ahaa gabadhu markaa waxay ka soo qaxaysaa degmada Kaaraan bay ka soo qaxaysaa ilaa waxay imanaysaa degmada la yiraahdo Wadajir oo ninka nuur deriskiisa ah soo ogtihiin xaafad walba waxa leedahay jiil mar wada kaca oo dhalinyaro ah oo isla jaan qaada nuur dhalinyaro badan bay isku jiil ahaayeen way wada kaceen oo carcar hor leh ku soo kaceen qof walba oo kamid jiilkaas waxa uu ku haminayay oo hamiya damac galisay quruxda Fartuun waa qofka kaliya ee qof walba uu ku haminayo inuu gabadhaas helo gabadhan maxaa lagu calmaday marka waa gabadh alle qurux u dhameeyay anshax iyo asluub Allah ugu daray wuxuu siiyay hibo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala Ilaahay hibo siiyay qofka arka mar inuu dhax ka qaadi waayo quruxdeeda muuqaalkay qof waxa jira soo jiidasho leh soo qurux badan balahaynba hadana soo jiidasho leh marka indhaha saa u qabato ku soo jiidanaya jira marka gabadhaas Ilaahay wuxuu hibo siiyay in wiilka soo arkaayo aw calmado oo caashiq waakii abwaanka oran jiray waa beerluladii beed sidaan wada ognahay ragga damac baa lagu baleeyay oo Soomaalida ku maamada rag damac iyo dacalmada ka badhamaato dhalinyartii xaafadoo dhanba waxay dooneen inay gabadha bartaan nin walba wuxuu ku fikiray sidoo gabadha ku baran lahaa walla markeeda ku soo qori lahaa ee kulaha saawlaha sidoo ku soo xirgelin lahaa waxa la bilaabay inay akhristaan buugaagta jacaylka iyo geeraarada iyo gabayada iyo qof walba wuxuu amaanayaa oo wuxuu ku tashanayaa inuu tartanka ku guuleysto tartan baa dhex maray ragguna ficilka ugu xun ee dhex maray waxa weeye inay gabadh ku tartamaan sidii Fartuun loo baran lahaa oo haasawa jacayl loo wadaagi lahaa ayuu nin walba isku taagay ninkii nuur qasada ku dhacday waxa uu kamid ahaa tartamayaasha wuxuu halkan dheer oo geed gaaban u fuulay si uu ugu guuleysan lahaa kaalinta koobaad ugana gali lahaa saaxiibadii kaalinta koobaad gali lahaa nuur wuxuu ku fikiray
meesha hawsha ka bilaabi lahaa iyo sidii uu hawshan lagu dhaqaaqi lahaa wuxuu xasuustay saaxiibkiisa qaaliga ah maxamed oo ahaa korantistaha xaafadda. korantistu waxa weeyaan qofkan korantada xaafadda geliya xaafadaha geliya oo xaafadda Fortuna daris aad ugu dhow ay ahaayeen inkastoo nuurna ka fogeyn oo isba daris ahaayeen. ninkan maxamed oo kuwa korantada ka shaqeeya ka mid ahaa ayuu ku fikiray ninkaas soo xasuustay markuu ku fikiray gabadhaas inuu barto iyo sidii albaabkii u fududeyn lahaa ninkaas u noqday. tolo wuxuu sameeyay doonaa maxamed wuxuu xaafadda ku soo dhaweeyay Fortun markay soo degayeen isaga electriga wuxuu markaa ninkan maxamed waxa uu noqday furihii iyo jaaniska iyo wadadii uu dhex mari lahaa barashada gabadhaasi Fortun. maadaama ninkan maxamed uu ahaa nin korantista ah waxa uu ahaa ninkii guriga ku soo dhaweeyay Fortun markay magaalada in xaafadda soo degayeen oo xidhay sidaas oo dhan aad baan xaafadda looga yaqaanaa loo tixgeliyaa. ninkan maxamed oo wiil aad u furfuran oo dadka dhex gal yaqaana oo dadkan loo yaqaan bulshaawiga weey. maxamed waxa uu ka mid noqday xubin qoyskan Fortun ka mid noqdayba oo aad baa looga tixgeliyaa markasta uu tagaayo waxa uu yaqaanaa wiilkooda curad oo waxay u baahdaan buu qabtaa meesha cilad la dhigay ka timaado ayaa mataqaanaa uu hagaajiya. nuur wuxuu ogaa saaxiibkiisa qaaliga maxamed iyo xaafaddan Fortun xiriir wacan uu ka dhaxeeyo oo reerka laga jecel yahay. nuur iyo maxamedna waxay ahaayeen saaxiibo isku dhaarto isku sira habeenada kamid ah oo salaasa ah dabayaaqadii 2009 maxamed iyo nuur waxa caado u ahayd inay habeenkii kulmaan oo ay sheekaystaan. habeen walba ay kulmi jireen. habeenka way kulmeen salaani sawiraysi kadib nuur ayaa hadal ku bilaabay wuxuu ku yiri saaxiib qoftan shidana xaafadda soo degtay madumaashadeen baa معانا ما يكون صعوبة ما ينقع حرير له معلومة إني حاجة ضبطان تهايو أنا قد نود إنه اللودي محمد وحو فهمين عبقري عقل بدن بوها وجد كساحب كيه كبردن ما نبرت كبردن ما نبرت محمد وحو آدو عنا إسبريتي إسكو حرك الله بدن قف إسرائيل السنة ينو إسكو حرو أيو آد وعنا وهاوش عسو حونا كنا بهاوش سهل. محمد سوى جوابه صاحبكي أيو كول وسؤال شو جوابه إن مري حافظة تغنى عاوي داون وجينيا أي صوت الصدر وكان نمري وتغني وحدونا يا إنه صوت وصوت قبضنا وليس كسو أركو نكى نور جهان سبو وأركارتها وحأفر ما يوضد يومر اللهاب تهاوشا ورادنيو وبوس كسكو سلحان لها oo guushi iyo dooni ku gaari lahaa oo gabadhaasi dhalinyartu isku weerarayso wuxuu chance u hayay gurigooda tagaba raga kale inay arkaan baabay chance u waayeen isagoo caaw guulin buu soo helaya wuxuu caaw waxaan eber kaga tagayaa oo hal iyo eber kaga badinayaa asxaabtayda ogsoonow in habeenka nuur ujeedkiisu uu jacayl lahayn ee soo arago islaha balse nasiib xumo jacayl dhaba ku soo beermi doona. gurigii baa la tagay waxa ridii albaabkii ka furtay gabadhii Fortun. dhammaan reerkii waxa lagu wada caawinayaa daaradda oo Soomaalidu waxay caan ku tahay habeenkii inay kuwa magaalooyinka degan barandada ama daaradda fadhiistaan. dadka baadiyaha degan ama miyiga degan ay ardaaga fadhiistaan oo habeenkii la caawiyo oo la sheekaysto qof walba wuxuu maanta soo qabtay ka warramo inkastoo waqtigan casriga social media dadka saameyn weyn ku yeeshay oo labadii qof ee wada fadhiya aanay wada joogin haddana Soomaalidu waxay caan ku tahay inay daaradda wada fadhiistaan habeenkii ku sheekaystaan. maxamed iyo saaxiibkii nuur waxay bilaabeen salaani iyo sawirays. nuurna reerkii waa laga bartay gabadhan Fortun ee ninkan u socdaa waxay fadhidaa gulaca amba koornaha qofka xisaabta yaqaan angalka buu yaqaan angalka fadhidaa oo meesha xaggan hore soo fadhido waxay ku akhrisanaysaa casharadii iskuulka waayo gabadhan waa gabadh aad u dadaal badan oo aad wax barasho jecel waxaana ku mashquulsan tahay wax barashadeedii iyo imtixaanadeedii mar walbana gabadhaas kaalmaha hore iyo koobaad iyo labaad istixaad
ayay ka muuqan jirtay. Nuur aragtida habeenkaas ayaa waxay ku beertay jacayl daran oo lulay laabtiis iyo qalbigiisa. Ilaa Nuur waa nin jacayl helay habeenkii oo dhan gabadhii buu fiirinayay. Intii meesha lagu caweynayay la sheekaysanayay isaga indhiis waxay ku maqnaayeen gabadhii Fartuun ahayd. Ayuu aad u eegay. Meel kale ma fiirinayaba sidaas iyadoo u eegayaa iyadoo ku indho go'ay. Gabadhiina way dareentay, way xishootay, kursiga ay ku fadhiday bay ka kacday, qolkeedii bay gashay. Waxaa la gaadhay xilli dambe Maxamed iyo Nuur xaafadii maca salaameeyeen, qof walba gurigiisii buu abbaaray si u seexday. waxaa la gaadhay subaxdii dambe ninkii Nuur uu soo kacay iskuulkiisii buu aaday oo aan xaafadiisa ka dheeraynba. subaxdaa ninkaa Nuur wejigiisu ma qurxoona, kursi dambe iska fadhiistay markuu fasalka soo galay. asxaabtiisii awal uu salaami jiray iyo farxaddii shaxshaxdii male. ardaydii way yaabeen, aamusnaanta Nuur way ka yaabeen. saaxiibkood aamusnaantiisa ayay ka yaabeen, waayo ninkan nin furfuran oo bashaasha oo markuu fasalka soo galo la dareemo, markuu asxaabta ku dhex jiro laga dhex dareemo oo hadal badan oo ninkaas waa firfircoon buu ahaa. maalinkan xaaladdu sidii ka duwan tahay, isagoo aamusan oo hadlaynin buu soo galay. way u yimaadeen, waxay ku dhahan walaal maxaa kugu dhacay? umuu jawaabin. nala hadal bay idhahdeen, waxba iguma dhicin waad mahadsantihiin buuri. balse ardaydu ma ogo ninkan waa nin jacayl ku dhacay oo jacayl ku beermay oo qalbigiisa wax ku soo noqonaya muuqaalkii quruxda badnaa ee gabadhii oo maskaxdiisu mashquul ku tahay muuqaalkaas daawashadiisa. intaasna caawa ku deeninaa qaybta koobaad ee qisada Nuur iyo Fartuun. intaan qaybta labaad ku kulmayno, asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.